sharmaka ma irbad baa laysku mudaa mise cilaaj ayaa lagu geynayaa haddii aad maskaxda ka xanuunsanaysid. Saddexdan qodob dhegayso. Qofka xanuunka cilmu nafsiga ku dhaco waxa la geeni karaa kow psishologa horta dakhtar maaha, kanina ma qoro, daweyna dadka ma siiyo. Dhalinyaro badan oo da'yara ayaa meeshan la geeyaa markay waddanka ku cusub yihiin. Waraysi ayaa lala yeeshaa, talooyina waa la siiyaa markuu stresska iyo welwelku ku bato. Therapy ayaa la yidhaahdaa. Laba, psychiatrka waa dakhtar. Daweyna wuu kuu qori karaa haddii hurdo la'aani kugu dhacdo, aad isla sheekaysatid ama wax kale la mid ah. Dawooyinkaasina qasab maaha haddii aanad xidhnayn. Saddex, Digoschlossen ama forensic waa meesha dadka maskaxda ka xanuunsanaya lagu hayo oo ay ku xidhan yihiin. Waa qof dembi culus sameeyey ama waa qof naftiisa iyo ummadda kale laga ilaalinayo. Marka meeshan la geliyo waa xabsi caadiya. Kabaha ilaa suunka ayaa la iga bixiyaa marka meeshan imaado. Markaad laakiin gudaha u gashid si isbitaal caadiya ay u eg tahay. Xabsiyada caadiga way ka qurux badan tahay. Dhibta meeshan laakiin leedahay waa dadka meeshan ku xidhan ma oga goorta ay ka soo baxayaan. 5 sano, 10 sano, 20 sano ayay qaadan kartaa ilaa inta lagaa fasaxayo. Garsooraha ayaa go'aan ka gaari karaa inaad soo caafimaaday ama inaad weli xanuunsanaysid. Fideoba maalin hore soo dhigay dadka qaarkood si khalad u fahmeen inuu waalida sharci lagu qaato. Anigu qofna kumaan odhan inuu waali sheegto haddii uu caafimaad qabo. Waxbaan sharaxay talada iyo sharaxaada kala saara. Mar labaad waxaan leeyahay haddii aad xanuunsanaysid xanuunkaasina waddankaaga aan lagugu daweyn karin, xanuunkaasi maskaxda ha ahaado ama mid kale ha ahaado, waa suurtagal, waa macquul inaad sharci ku qaadatid. Sharcigaasina si aynfakh ama si fudud laguguma siinayo. Waa inaad caddaymo adag dakhtarka kala timaadid. Haddii aad laakiin adigu aad suwaashid, alaab jijibisid ama dad kala dishid, waa lagu xidhaya. Qofkii iswaalana oo ka badbadiya waxa ka imaada isagay u taala.